بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ maantiin ba kusoo dhawaada kulan kale iyo taxanaheena buug wadaag kulankan buugga aynu kusoo qaadanayno waxa la yiraahdaa what's populism waa maxay tarbulna ciyaarnimadu buuggan waxa qoray qoraaga loo yaqaano John Werner Muller waa professor wax ka dhiga gaar ahaan culuumta siyaasadda jaamacadda Princeton University waxaanu leeyahay buug kale iyo maqaalo kale oo uu arrimaha siyaasadda iyo dawladnimada kaga hadlo buuggan wuxuu leeyahay oo Muller leeyahay adduunka waxa ku soo batay siyaasiyiinta ama siyaasadda tarbulna ciyaarnimada ah ama populistka waxa loo yaqaano gaar ahaan buu leeyahay Europe Mareykan Latin America iyo dalal kale oo adduunka haddaba waa maxay populismka ama tarbulna ciyaarnimadu maxay tahay maxay kaga duwan tahay dimuqraadiyadda siyaasadda loo yaqaano tarbulna ciyaarnimadu maxay yihiin ama qaababkeebay u ololeeyaan ama ay u shaqeeyaan siyaasiyiinta populistka ahi maxayse marka ay xilka qabtaan ama awoodda ay helaan sidee bay u dhaqmaan sidee baase ay tahay in loola macaamilo ama loola dhaqmo dadka tarbulna ciyaarka ama populistka ugu horeyn wuxuu qeexayaa oo uu leeyahay populistka ama siyaasiga tarbulna ciyaarka ama siyaasadda tarbulna ciyaarnimada ahi waa siyaasad ku dhisan mar walba oo ka duuleysa in qofka ama cidda u taagan aragtidaasi ay isu xaqliso ama ay isa siiso dadka waa kuwa inta badan ku ololeeya in iyagu dadka wakiil ka yihiin iyaga oo kali ah ay wakiil ka yihiin waa kuwa inta badan dhaliila nidaamkii hore u jiray ama dadka elite-ka ah ama labeenta ah ee bulshada waa kuwa inta badan iska dhiga inay u hadlayaan ama codkooda uu yahay codka kaliya ee dadka matalaya siyaasiyiinta tarbulna ciyaarka ama populistka ahi waxay aaminsan yihiin inay iyagu yihiin siyaasiyiinta kaliya ama cidda kaliya oo la damiir ay ku diidayaan ama musuqa ama dawladnimada xumada jirta in ay yihiin iyagu cidda kaliya ka damqanaysa isla markaana xaq u leh inay dadkan matasho oo ay iyagu yihiinba waxyaalaha la yaab kale oo uu ku qeexayo ama uu leeyahay waa lagu gartaa siyaasiyiinta tarbulna ciyaarnimada waxa kamid ah in ay isku milaan ama isku dheehaan in ay iyagu dadka yihiin in dadku iyaga ay wakiisheen in iyaga iyo dadku aanay ahayn wax la kala qaadi karo tusaale ahaan ololayaasha qaar wuxuu leeyahay magacyada loo bixiyay in leeyahay Indira waa Hindiya oo dhamina waa Indira in tusaale ahaan marka uu leeyahay hal qof oo fikradda aaminsan baa iska dhigaya inuu dadkii oo dhan isagu wakiil ka yahay waa dad inta badan ka soo horjeeda wada noolaanshaha iyo kala duwanaanshaha afkaarta kala duwan nidaamka populistka ama dadka populismka tarbulna ciyaarka ahi waxay aaminsan yihiin in dadka oo dhan ay yihiin koox ama cid kaliya cidda kali ah oo matali kartaana ay iyaga yihiin oo codkooda ku hadli kartaa wuxuu ka warramaya uu leeyahay ololayaasha qaarkood marka ay sameynayaan siyaasiyiinta tarbulna ciyaarnimadii waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah oo ay sameeyaan in ay iyagu isu dhigaan inaabay yihiin cidda kaliya ee dadka tusaalehaan Hugo Chavez wuxuu leeyahay ololihiisa mid wuxuu ahaa Chavez waa hal qof dadka oo dhamina waa milyan macnaha isaga oo kaliya ayaa matali kara isagoo kaliya wuxuu yeelo ama uu qabto ama uu taagan yahay dadku u taagan yihiin ololayaasha caynkaas wuxuu leeyahay waa kuwa simbal oo fudud oo laga yaabo dad badan inay ku dagmaan oo ay u arkaan markaas inay yihiin dad dhabahan matalaya waxyaalaha kale oo xiisaha leh ee uu Muller kaga warramaya buuggan waxa kamid ah wuxuu yahay farqiga u dhaxeeya dimuqraadiyadda iyo tarbulna ciyaarnimada hadiiba populismki iyo tarbulna ciyaarnimadii ay tahay in dadka lagu ololeynayo oo dadka in dadkani wakiil ka yihiin oo ay matalaan oo iyagu u hadlaan ay tahay dimuqraadiyadduna ay tahay in dadku ay doortaan cidda matalaysa ee awoodooda iyo maamulkooda ay u dooranayaan maxay tahay farqiga u dhaxeeya wuxuu leeyahay labadaas waa laba aad u kala durugsan waayo kow populismku horta marka koobaad waxa ay ka dhex jiri karaan oo kaliya horta waa nidaam dimuqraadi ah nidaam dimuqraadi ah uu ka dhalan karaa qof ama tarbulna ciyaar ama nidaam tarbulna ciyaar ama xisbi tarbulna ciyaarnimo ku saleeyo ku ololeynaya marka labaad populismku ama populistka dadka siyaasiyiinta tarbulna ciyaarka aynu ku macnaynay waxa ay aaminsan yihiin in iyagu ay yihiin cidda kali ah maaha in cid kale ay xaq u leedahay inay la tartanto oo dadku kala doortaan laakiin inay yihiin iyagu cidda kaliya shacabka matalaya inay yihiin shacabkii
oo qofa si kooban oo ay iyagu yihiin markaa cidda kaliya ee shacabka matalaysa inta kasoo horjeedaana ay yihiin dad aan shacabka matalayn dad aan ka mid ahayn xataa mararka qaar haddii tartanada la qabto ama ololayaasha ay galaan boqolkiiba 51 ay u codeeyaan siyaasiyiintaas aan leenahay waa populist boqolkiiba 49 kale siyaasiyiinta ama nidaamkaasi wuxuu u yaqaanaa dad aan ahayn dadkii saxda ahaa ama dadkii caadiga ahaa ama dadkii dhabta ahaa sida ay ku ololeeyeen tusaale ahaan oo kale uu ka hadlaya Trump oo kale uu leeyahay the real people oo kale uu isticmaalaya ama dadkii caadiga ahaa isagoo le markaa macnaha dadka soo horjeeda ama Brexitka oo kale dadkii diiday boqolkiiba 48 meelaha ahaa lagu sheegayay inaan macnaha aanay ahayn dadkii caadiga ahaa marka nidaamka populistku dimuqraadi uma dhawo buu leeyahay maadaama uu yahay nidaam cunsuri inta badan u badan oo cidda ka soo horjeeda iskaba dhaaf inuu tixgeliyo u yaqaan inaanay caadi ahayn inta kalena u yaqaan dadka caadiga ay tahay in la matalo ama la meesha ama dawladda xaq u leh iyaguna ay matalaan dimuqraadiyaddu laakiin waxay ixtiraamtaa kala duwanaanshaha waxay ixtiraamtaa in afkaar kala duwani ay ishayn karaan oo dadka lagu tartamo hadhow la bedeli karo ciddii marka afkaartaas ama fulin weyda ama ay dadku saluugaan laakiin populistku aanu aaminsanayn in haddii mar la bedelo in haddii mar la doorto aan la bedeli karin aaminsan yahay siyaasiga ama nidaamka populistka iyo tarabulna ciyaarka ahi in haddii mar la doorto iyagu dadkii yihiin dadkii oo kuraasta fadhiya uun ay yihiin taasina aan ahayn wax laga hadli karo marka wuxuu leeyahay waa laba aad u kala duwan oo ay tahay in aan la isku khaldin Muller waxyaalaha kale uu kaga warramayo buugiisan waxa kamid ah oo uu leeyahay markay haddaba xilka tagaan siyaasiyiintan tarabulna ciyaarka ama nidaamka tarabulna ciyaarka ay markuu xilka qabto maxay yihiin astaamaha lagu gartaa wuxuu leeyahay marka ugu horeyso horta waxay diidaan oo ay la dagaalamaan oo ka soo horjeestaan in la mucaarado markaba waxay isu rogaan cid aan iyaga ahayn iyo nidaam aan iyaga ahayn iyo shaqo aan iyaga ahayn oo socota ama cid hadal ka keeni kartaaba inaanay jirin waxay la dagaalamaan oo kale buu leeyahay saxaafadda iyo warbaahinta oo ay dhaliilo u jeediyaan oo ay ku tilmaamaan kuwa markaa ama qaran dumisa ama ayaga ka soo horjeeda ama nidaamka oo dhan ka soo horjeeda macnaha waxay diidaan in afkaar ka duwan iyo saxaafad dhaliilaysa iyo warbixino iyaga ka soo horjeeda la sameeyo wuxuu leeyahay waxyaalaha xiisaha leh ee lagu garanayo waxa kamid ah tarabulna ciyaarku in ay iska dhigaanba iyagu inay yihiin qaranka qofkaas wax ka sheega ama hogaamiyaha populistka wax ka sheega waxay ku leebel gareeyaan ama ay ku sumadayaan oo lagu shaambadayaa inuu yahay qof qaran dumisa sidii oo qofka hogaamiyaha uu yahay isagu qaranka wuxuu leeyahay marka iyaga iyo qaranka ay isu yaqaanaan inay yihiin hal qof oo ciddii markaa ka soo horjeesatay iyaga ay u dhigaan taageerayaashoodana ugu sheegaan qoftii dan dawladnimada iyo qarannimada iyo nidaamka oo dhanba wuxuu leeyahay waxyaalaha kale ee lagu garan karo markay awoodda tagaan waxaa kamid ah inay kala xigtaysi badan inay sameeyaan oo dadkii soo doortay ay isku dayaan markaa inay mid walba si gaar ah ama hawlo gaar ay u fuliyaan ama musuqmaasuq weyn inta badan uu ka dhaco iyaga oo raali gelinaya markaas inay dadkii ama ciddii ku lugta lahayd ay doorashadooda iyo inay kursiga yimaadaan ay sameeyaan guud ahaanna waxyaalaha lagu garta buu leeyahay markaas siyaasiyiinta populistka waa inay aaminsan yihiin in iyaga oo kali ah ay yihiin cidda madali karta dadka oo aanay cid kale haba yaraatee matali karin cidda ka soo horjeedsataana ay tahay cid ka soo horjeeda dadkii oo markaa aanba ka mid ahaynba dadkii xataa qofkaasi muwaadin iyo qof xaq u leh hadduu doono ka mudanba ha noqde ugu dambeyn Muller wuxuu kaga warramayaa siday tahay markaas in loola macaamilo wuxuu leeyahay populistka waa inaynaan ula hadal ama loola macaamilin sida iyagu u dhaqmaan oo haddii iyagu sida u dhaqmaan loola dhaqmo oo dhaqankooda la yeesho cidda markaa la hadlaysaana iyaduna waxay noqonaysaa cid aanba iyada ka duwanayn oo qaabkii iyo jidkii ay maraya marka wuxuu leeyahay waa in la dhageysto waa in si aqoonaysan oo cilmiyeysan oo ogol wada noolaansho oo ogol wada hadal oo ogol dood maadaama dadkii mar walba ay markhaati yihiin oo garasho iyo mas'uuliyad iyo ilbaxnimo leh in loola doodo in laga hadlo waxyaalaha iyo khaladaadka iyo dhaliilaha ay sameeyeen oo looga hadal iyagu sidii uga hadli jireen laakiin nidaam dimuqraadiya oo cidda hadlaysa mar walba ay aaminsan tahay in waxaan ay sheegayaan ay sax noqon karto khalad noqon karto in dadku ay yihiin iyagu cidda kala go'aaminaysa in iyagu ay aaminsan yihiin inaad sidaas samayn karaan ama haddii ay samayn waayaan ay kursiga bannayn doonaan oo macnaha furfurnaanta caynkaasi ay taalo iyo guud ahaan buu leeyahay in dib loo qaabayo buu leeyahay maadaama nidaamkii bulsho ama social culture-kii iyo dhaqankii ummadeed ee dawladnimooyinka iyo casrigu isbedelayo
in wuxuu leeyahay iyada lafteeda nidaamada siyaasiga iyo institutionska ka shaqeynaya hay'adaha dawladda in reform iyo dib u eegis la jaanqaadaysa casriga la sameeyo si looga baaqsado in marka dad badan oo populist ah oo aan afkaar dadku ku wada noolaan karaan iyo is-ixtiraam iyo fikir kala duwanaansho iyo wada noolaansho guud aanu jiri karin si aanay u imanin waa buug aad u kooban waqti xaadirkana mawaadiic aad u khusaysa guud ahaan dunida runtii soo bandhigaya cid kasta oo akhriyi kartana aan kula talin lahaa inay akhrido kulanka kan ku xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa buug wadaag oo adduun wadaag hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books. Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan, buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare, agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali, Ingiriisi iyo Carabiga. Soo buuqo Hema Books oo baahi tir maskaxdaada.